daawadayaal soo dhawaada wararka naga soo gaaraya magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in saaka aroortii uu dagaal ka qarxay deegaankaas kaas oo ay food isku dareen ciidamada maamulka SSC Khaatumo iyo kuwa Somaliland dagaalkaas ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale wararku waxay sheegayaan in maxaabiis tiro badan iyo sidoo kale hub iyo gawaarina labada dhinac ay kala qabsadeen afhayeenka madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa ka hadlay xaaladda wuxuu sheegay in xukuumadda uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro ay diyaar u tahay wada hadallo nabadeed si loo soo afjaro colaadda wuxuu ku baaqay in la joojiyo dagaalka iyo in la tixgeliyo nabadda oo ah mid faa'iido u leh dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaas dhinaca kale maamulka SSC Khaatumo ayaa wali ka hadal dagaalka maanta ka dhacay iyo baaqa nabadeed ee Somaliland soo direen dad badan ayaa sugaya in maamulkaasi uu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan xaaladda hadda taagan iyo gogosha nabadeed ay soo fidisay maamulka Somaliland iyo xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Cirro dagaalkan ayaa imaanaya iyadoo xiisad muddo dheer ka taagneed gobolka Sanaag ay sii xoogasatay taas oo dhalisay in shacabka deegaanadaas ay ku jiraan cabsi iyo barakac iyo walaac sidoo kale ay ka qabaaniin dagaalka mar walba sii xoogaysanaya